يا أبا داهر باسمي هذا يصيروا مقصود بلاوي هذا اللي يسوف له قري ما ده داهر على سوما ده اللي يسوف له قري ورا الأدرس كي إيتام ودها. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الهجري أصبح حسوسي هنا هذا آوي أنت جوجا مركز إيش شيء بداهر آوي حالة ديس سواية يا وشي وراك كل عيالي قمت كذا اسكو يالا أنا مقعدين سوقلا ay tiigo barta ninkan la yiraahdo AJ family aniga ragga u sheegay waxa kamid ah Daahir Cali Sow waxa kamid ah ninka la yiraahdo Garyaqaan waxa kamid ah CK waxa kamid ah Xuseen Jaamac yarka oo haay Columbus degan waxa kamid ah ninka la yiraahdo Qurax ku dhiigle waxa dad badan ayuu ka xiraya AJ family Daahir Cali Sow hadii lala kacay oo akoonkiisiba laga xiray dad badan ayaa ku xiga dad badan ayaa ku xiga gurcad joogto gabar ku qasanayaato naagtada baraysa dhiqaysi iyo qulubka iyo wax aan loo joogana baraysa doqoyo mase reemiyi baa iska tahay gaajo ku kor baa iska tahay rafaad baa ku soo kortay ciidaa ku soo korsay AJ family ido oo ayuu iska sawaalo ku soo korsay gaajo badan baa soo aragtay rafaad badan baa soo aragtay taarki fanax baa ka soo shaqeysay gaajaad aragtay taarki ali muxuu ahaa markaa ka soo shaqeysay ali samatar baa ka soo shaqeysay gaajaad soo aragtay waa rafaaday naag cadaan inaad guursato أبو حوي كورتا ميا يا إن الناس أجنبي يقول ستو عدانا أبو حوي كورا ميا ووارتا ميا معناها وكورا في فينا ميا معناها عدانك يا أغلي أبنت وما يسلا أصبت وتوسجست قاعد سكرت سو أما تأكيل الشيء يا عمركم صورنا في الرحوين كها أو ديارة مركم فرو داي لغنا صبلا من نيرو مركو صباح توكسن مر دبه يعني مركو ديارته كوري ساوي مكتو اوبرتين يري ان مروق ندول مروق كاكالميا إنسو كالميا إن أبي نبت إنجيا أبها وصمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدام ونكسن مركز شوكتان وفرحان محكا عصانيا سبسكرايب واللايك مركوري ويشي عرفتين كومنتي قولوا لك ما أنتو حكا لي محكمة دي دار على السوق ولا حري محكمة دي رمتي وحبي الباب كان اسكو نفتي محكمة دي ولا حري وحبي حالد ما يعرفش مرسا dad fara badan baa ka hadlay maxkamadda iyo xaaladeeda halka u dambeyso runtii ilaa hadda marka la eego dadka hadlay runtii tuunka u badan wuxuu ku jiraa AJ family dadku waxay leeyihiin ninkaas xiray laakiin ninka hadii laguma eedeyn karo oo dadkooda fara badan baa jiro oo magaranaysaa xiri kara marka ilaa hadda qofka saxda ah lama ogaan laakiin tuunka u weyn dadku waxay ka qabaan AJ family oo ka xiray video kale arkay xitaa la soo qaatay isagoo leh qofka ku dhiba TikTok asaan laga xiraa marka ilaa hadda wax AJ family lagu cadeyn kara maaha laakiin magaranaysaa dadka iska tuumaya marka maxkamaddii caadi u dambeyn waa la xiray halkaas xaalad maraysa xaalad waa adkaatay baabajee wax ka hadlay oo adiga daawadayo baabajee wax isku ooyay runtii social media markaad eegto yani iska dhibadaya yani waxaad ku tirsan cabeeshay oo waqti badan soo dhistay ayaa mar walba ay karaysaa tusaale waxay leeyihiin ninkii shumuurey milyanka gaar orod ku gaaray haddana maanta waxba ka hayn marka social media inta badan runtii wax la isku hadlaya maahan qofku intaa ku jiro waxaa fiican inuu si wanaag ku joogo inuu si caadi ku joogo si magaranaysaa ilaah ka boqo magaranaysaa aqlidiisa wax xisaab dhib kale inuu ku joogo fiican haddii laga xiran saa laga xiro laakiin qofka hadduu dhibaato ku joogo social media iyo dhibaato iyo qabyaalad oo laga xiro haddana kii uu furta haddana waa laga xirayaa marka social media inta badan waxaa fiican in qofku joogo wanaag iyo magaranaysaa wax magaranaysaa adduunkiisa aqlidiisa aan dhib u keenin saasa wanaagsan marka runtii maxkamadda Daahir Cali Sow runtii shaqay haysay hore runtii maxkamadda caalamiga ahayd bulshada shaqo haysay inkastoo magaranaysaa ay jireen kiisas ay ku fashilantay sida kiiskii Khadiij oo kale oo meesha ceeb iyo meesha waxa ka dhacay la yaabay marka runtii maxkamadda runtii waa la xiray hadda albaabka la isku dhuftay maxkamaddu way xiran tahay bal markii maxkamadda la furan sugaynaa marka bal fikirka waxaan doonayaa dadka daawanaya bal fikirkiina maxkamadda la xiray sida aragtaan maxkamadda ma shaqay haysay mise waa marka qofkii bal fikir qaba waxaan sameeyay bal fikirka ila wadaago maxkamadda soo arko iyo haddii ay tahay maxkamadda dib loo soo celiyo runtii aan u sanaa ogaa maxkamadda waxaa ku xirnaa dad fara badan
dad badan baa kees keensaday, rag baa xaaskoodii ka dacwoonayay, dumar baa raggoodii ka dacwoonayay. Maxkamaddu runtii kees badan xalisay. Runtii marka maxkamaddu runtii waxay ahayd shaqo fiican bay bulshada u haysay. Laakiin marka keeskan AJ gashay ayay sii waalatay oo yani cirkaasay gashay. Marka runtii maxkamaddu halkaasay maraysaa xaaladdeeda. Marka maxkamaddu way sii waalatay, xaaladdu halkaasay gaartay. Runtii maalmihii u dambeeyay maxkamaddu runtii waxa weeyaan marka maxkamadda xaaladdeeda runtii meel adag maraysay. Runtii waxa weeyaan runtii waxay noqotay yani waxaan garanayaa maxkamadda markay u yartahay habeenkii waxaa daawanaysay 5,000 ilaa 6,000 qof. Marka maxkamaddu runtii waxa weeyaan waxyaalo badan bay xalisay, kees badan bay xalisay. Runtii aniga runtii waxaan aaminsanahay maxkamadda in la soo celiyo oo magaranaysaa inkastoo daahir maanta arkayso haddana TikTok cusub furtay oo kan falow ha lasoo dhaho. Marka maxkamaddu runtii aniga qudheyda dhowr mar aan codsaday in aan kasoo hadlo laakiin waa lasoo qaban waayay anigoo firfircoonina. Marka dhib ma laha laakiin waxa weeyaan waxaan leeyahay maxkamadda ha la soo celiyo, maxkamadda ha la taageero. Daahirna waxaan leeyahay niyow maxkamadda caadi ka dhig magarad. Niyow marka qaar magaranaysaa waxyaalaha personal attack iska dhaaf magarad. Maxkamad caadi ah oo dadka u dhaxaysa ha noqoto. Marka yani maxkamaddu maray waalatayoo ninka daahir oo xataa keeska xataa qadijay xitaa hadda way kusii waalatay maxkamaddu magarad. Waa halis. Marka maxkamadda waxaan leeyahay maxkamaddu ha noqoto maxkamad cadaalad ah dadka u dhaxaysa. Magaranaysaa jawi caadi ka yahay, buuq uusan jirin, aan la isku caynayn meesha. Magaranaysaa qof kastana keeskiisa si magaranaysaa caadi magaranaysaa loo dhageysto. Laakiin haddii meesha ay waalato qabiil iyo meesha noqoto maxkamaddu way sii waalanaysaa. Marka aniga waxaan aaminsanahay maxkamaddii in la soo celiyo. Runtii Baabaji xitaa maanta wuu iska ooyay wuxuu lahaa maxkamaddii Daahir Cali Sow waqti ka baxay. Marka Daahir waxaan leeyahay niyow maxkamadda haddaad soo laabato niyow maxkamadda magaranaysaa wax ka beddel. Niyow maxkamadda magaranaysaa jawigeeda beddel, waqtiga beddel. Magaranaysaa waxyaalaha caayada iyo buuqa ka ilaali. Maxkamaddu waxay u baahan tahay deganaan. Maxkamaddu waxay u baahan tahay jawi degan. Maxkamaddu waxay u baahan tahay war sax ah. Maxkamaddu waxay u baahan tahay kiisaska xalinaysa in sax ama mise been. Waayo dadka qaar ayagoo dhaqaale doon haddana macnaha been sheegaya. Marka maxkamaddu waxay u baahan tahay horta inaad soo xaqiijiso. Wax kale oo oran lahaa Daahir Cali Sow intaad kiiska live ka keenin horta qofka marka hore ha kula soo hadlo telefoon ama WhatsApp lagala soo hadlo message soo saar. Qofka marka hore ha kula soo hadlo kiiska kuu sheego run inaad tahay soo xaqiiji. Markaad soo xaqiijiso kiiska sax yahay markaa maxkamadda keen qofka live keen. Laakiin qofkii aan soo xaqiijin oo aan kiiskan sax yahay ogeyn markaad maxkamadda iska keento oo qofka iska hadlo yani waxaa laga yaabaa qof kale dhibaato u keenayaa. Marka maxkamadda waxaan oran lahaa marka hore kiiskaas soo xaliso. Yani marka hore xaaladda soo dejiso. Waxaana magaranaysaa hala soo xaqiijiyo in sax yihiin in kale. Qofkii oo sax ah maxkamadda markaa yimid markaas kiiska loo galo. Marka Daahirna taladan siinayaa. Runtii waxaan sugaynaa in maxkamadda la soo celiyo. Maxkamadda runtii waxa hawada lagu cunay. Magaranaysaa albaabada loo xiray. Maxkamadda waxaan sugaynaa in la soo celiyo. Marka waan salaamayaa subscribe iyo like waa mahadsantihiin dhamaantiin.